Hello. Kusoo dhawaada muuqaal yar oo ka sameynayna luqadda HTML. Muuqaaladii ugu dambeeyay waxaan ka sameynay basicska luqadda JavaScript. Marka wax daabacaynay bookina wax ku daabacaynayna. Waxa u daabacaynay qaab ah in aan consoleka wax ku daabacno. Tusaale ahaan oo kale. Waxaan sameynaa daar maana ereyga maangal daabacno. Console.log ana dhahno. Kabacdina aan halka ku qoran ereyga. Example. Hello maangal ana dhahno. kabadana wuxuu ugu soo daawayay console-ka meel la yiraahdo console-ka meel la yiraahdo hadaba console-ku waa xagee salahan oo kale haddaan tagno bugaana tagno wikipedia ooga hadlayo wikipedia ooga hadlayo luqadda HTML kabadana right click aan ku dhufano kabadana aan inspect ku dhufano waxaan isticmaalayaa Chrome aan ku dhufano waxa ku soo baxaya bugaana ku soo baxaya hadaba meesha console ay ku qoran tahay dad ku dhufatay fiir waxa soo baxaya console-ka ku qoranay wax waa meeshaan waa meel loogu talagalay in code-ka tijaabada lagu qorto qofku marka code qoray inuu wax iska tijaabsado laakiin meesha rasmiga ah wax lagu qorto ma ahan tusaale ahaan oo kale haddaan soo qaato hadda ama aan ku qorto mar labaad qoro console.log aan qoro ma qorin console.log kana aan qoro intii oo kale hello mangal iyo bracketki oo aan intro wuxuu soo daabacaya hello mangalkii soo daabacaya haddaba console-ka ku qoranay meesha totally ma ahayn page-kan rasmiga ma ahayn ee waxay ahayd meel browser-ku leeyahay oo gudaha wax lagu tijaabsado haddaba si halka wax lagu soo qoraa halkan wax ku soo qortid waxa ka caawinaya luqadda la yiraahdo HTML oo loo soo gaabshay Hypertext Markup Language waxaas badan kusii ma ahan oo aad baahnid haddaba waxaan sameynaa maanta waxa weeye console-kan waxa ku yaala iga tirtir waxaan qaadanaa waxa weeye marka waa Hypertext Markup Language oo aan kusoo gaabinayno HTML waa luqadda uu ku qoran yahay bog marka website qoraysid bog qoraysid wax kasta kala qoraysid saddex wax waa shaqada u kala qaybin karnaa sanadada meeshaan taa go back aan ku dhufto salaam kale W3 schools aan ku dhufto meesha HTML looga hadlay boggan saddex wuxuu ka samaysan yahay HTML CSS iyo JavaScript يعني JavaScript assume karayna qolka qolna HTML marka maxay qabataa HTML waxay qabataa in waxaan meesha ku qoran ay ku soo bandhigto toos kugu soo bandhigto qoraalkan meesha ku qoran waa HTML qoraalkan gudaha home ku qoran waa HTML kan waa HTML wax kale ma qabato waa markup language waa luqad wax lagu calaamadiyo waxaan meesha ku qoran in la soo qoro waxa ka caawinaysa HTML CSS waxay ka caawinaysaa inaad style-ka u samaysid in halkan cagaar ka dhigtid halkan line madow ka dhigtid oo markii saa loo kortagna color ku beddelana ka dhigtid waxaan waa CSS in halkan column ka dhigtid halkan column kale ka dhigtid intaana main ka dhigtid mainka asaa usii kala qaybisid waxaan waxa ka caawinaya CSS waxa ku soo haray JavaScript waxa ka caawinaysa marka halka ku dhufto maxaa dhacaya marka sign up ku dhufto maxaa dhacaya haddii aan meeshan search dhaho maxaa dhacaya haddii tusaale ahaan oo kale meeshan try intaa ku dhufto kabacdina meesha kusoo bixi doontaa ku qoran maxaa dhacaya marka wax sameeyay interactive anay boga ka dhigtay JavaScript ka caawinaysa wax la falgali karo wax ku sameyn kartid aad ka dhigtid button ku dhufan kartid oo meel kale aadi kartid oo haddaba waa saddexdaas waa HTML oo ka caawinaysa wixii soo qortid CSS oo ka caawinaysa wixii qorxisid iyo JavaScript oo ka caawinaysa in wixii ka dhigtid wax la falgali karo lagu ciyaari karo meel lagu dhufan karo maanta hadda waxaan qaadanaynaa waa HTML meesha wax ku soo qori jirnay console-ka maanta waxaan rabnaa inaan soo qorno bog caadi ah ku soo qorno console-ka waxaan maalinkiisa saa loo soo qaadan jiray hoos buu yaallay hadda hoos buu yaallaa iska celinaa total console abaarkan uma baahan dad toos iska celinaa intaan meesha ku qoran waxay ku qoran tahay HTML kaasaan caadi u qoraynaa kabacdina intaan ashada ku soo qoraynaa sida asalka inta shashada intaan kuma qornaa salaam tagno bog aan ku qoran jirno kale kabacdina aan tagno JavaScript wait for a minute boggi HTML-ka ahaa anagu had intaana ku qornay laakiin marka bilowga tagtid total waxba kuma qornay waxaa ku qoran JS starter-na waa intaan waad ka tirtiri kartaa delete line-kana iska delete please hadda ma baahna laakiin muuqaal soo socda u baahan doontaa sida darteed total waxba iska delete
haddaba bogga maanta wuu maraya total maraya waxaan rabnaa inaan kusoo qorno intaan aan kusoo qorno intaan waa html keliya muuqaalka soo socda insha allah haddii ay booyna waxaa uga hadli doonaa cs intaana waxaan ku daranaa css xoogaa style waxaana u bedelaynaa inta log say ugu qurux badan tahay intii hore total wax isku eg maaha waa qoraal keliya iyo isagoo la istirgareeyay la qurxiyay isku dhow total maaha haddaba waxaan ku qurxinay waxa weeye css muuqaalka soo socdana uga hadli doonaa sidaan u samaynay intaan laakiin ay ku qoran tahay waa html maanta ujeedkan waxa weeye intaan inaan shaashada kusoo qorno shaashadan anaa intaa kusoo qorno okay haddaba si aan boggeenaa maran wax ugu soo qorno nagee boggeenaas badana meesha wax ku qori mayno anagu hadda sababta lix badna ku qori mayno sababta meeshaan waxay ku dhamaataa fiiri index.js waa js file waa javascript file waxaa tegaynaa index.html meesha way meesha wax ku qorayno badana intaan iga tirtir total ma baahni markaad html qoraysid waxaa u baahan tahay inaad isticmaasho wax la yiraahdo tags html dhan waxay ku saabsan tahay waxa weeye tags tag waxa weeye meesha wax ku qori lahayd waa calaamadii aan siin lahayd browserka si uu garto waxa rabtay inaad qortid waxay yihiin tag marka tag kasta wuxuu ka kooban yahay laba shay waxa la yiraahdo opening tag oo ah inaad calaamadda ka yar qortid kabacdina taggaaga magaciisa aad qortid kabacdina calaamadda weyn aad kusoo xirtid intaa waxaan isku yiraahdaa opening tag waxa ku haray closing tag isla calaamadii ka yar qoro haddana waxaa qortaa slash qoro haddana waxaa qortaa taggaaga magaciisii kabacdina calaamadda kale kusoo xiro tag name waa intaas halkan dhexdooda waxaa ku qorataa wixii aad rabtaa inaad soo daawacdo haddaad rabto inaad ciwaan soo daawacdo haddaad wax kale soo daawacdo intaa dhexdooda ku qoro haddana bilowno bismillah tag name wax jira ma aha darteed tag jira aan ku bilowno tagga koowaad markasta aad isticmaalaysid wax kasii horeeyaa jira laakiin maanta baahidana maaha sida darteed tagga mainka waa ka bilaabaynaa waa tag la yirahdaa body intaa markaa qoro computerka asagaa ii dhamaystiray maadaama uu yaqaano asagaa wixii kaloo dhan ii qoray yani asagaa labada ii qoray opening taggi iyo closing taggi asagaa labada ii qoray sidaa darteed markasta uma baahna inaa calaamadda ka yar ka weyn waxaa dhan qorto bodygu waxa weeye faylkaaga dhan wuxuu ku jiri lahaa yacni wax kastoo aan qorayno waxaa ku dhex qoraynaa bodygaas wax kastoo aan qorayno intaana ku dhex qoraynaa meel kale aadi mayno totally bodygu waxa weeye waa documentiga meesha ka koobnaa haddaba body markaa dhaho soo yare xoogaa body markaa dhaho waxaan sii dhexgelinayaa bodyga sababtana waxaa arki doontaa markaan css u gudbo tag kaloo asna kulligiis lagu sii dhex jiro oo la yidhaahdo magaciisa div ku xir calaamadaadi ku xiro kabacdina waxaa dhahdaa divkii ku xiro divkaana marlabaad wuxuu noqonayaa meel alaabteeda dhan ay ku dhex jiraan markii hore bodygaa lagu dhex jiray haddana waxaa lagu sii dhex jiraa divkaa lagu sii dhex jiraa yani wax kastoo aan qori doono hadda waxay ku jiri doonaan halkaa sababta anoo body isticmaala haddana aan div wax kale mar labaad anaa wax kale kusii duubo u baahnay waxaa arki doontaa markaa css u tago haddaba waxaan ugu celisaa boggeenii hore boggeenni wuxuu ka kooban yahay saddex shay waa ciwaan weyn number one iyo bogga inta mainka ah oo ay wax ku qoran yihiin iyo footer waxa la yiraahdo meesha ugu dambaysa haddaba saddex shay aan kala qaybino anaguna boggeena halka aan kala qaybino kow waa ciwaanka markii html la soogo ciwaanka ugu weyn loogada navbar hadduu jiro tusaale home about meelaha ay kugu qoran yihiin waxaas dhan waxaa la geliyaa tag la yiraahdo header marka saa urta asaga ay dhamaystiraya header baa la yirahdaa haddaba ciwaankaaga halkaas ku qoraysaa ciwaanka marka toos u qori maysid ciwaankana waxaa usii jira intaan waa weelkii uu ku jiri lahaa ciwaanka iyo loogada iyo navbarka iyo waxyaabihii dhan halkaa kor adigan lahayd waxay kugu jiri lahaan wey maanta ciwaan kaliya noo yaala haddaba html wuxuu leeyahay tag u gaara ciwaanada tag la yirahdo h waxaa jira h1 waxaa jira h2 h3 h4 waxayna kala yihiin ciwaanadu say u kala muhiimsan yihiin ciwaanka ugu weyn markasta h waxaa laga dhigaa h1 ciwaanka sii xoga ciwaan hoose hadduu jiro h2 ciwaanka sii hoose hadduu jiro h3 haddaba maanta ciwaanka ugu weyn maadaama uu yahay h1 baa isticmaalayna bacdana meesha waxaa ku qoran doonaa ciwaankaygu wuxuu yahay ciwaankaygu muxuu ahaa welcome to html and css iisoo koobiya waxaa markaa ii qorin
welcome to HTML and CSS yeah HTML oo dhan waa intaas waa inaad isticmaashid tagska bacdina tagsta wuxuu yahay garatid bacdina wixii loo isticmaali jiray ku qoratid already marka hore ciwaanka waa daawanay يعني هيرو دhan inta soo baxina maadaama maanta aysan looga iyo waxyaabo kale ku jirin inta soo baxina يعني cadkii koowaad waa sameynay waxaa noo haray cadka labaad cadka saddexaadna waa tigi doonaa oo inta kaliya kulligiisba haddaba cadka labaad fiiri waa ciwaan hoosaad iyo qoraal la socda ciwaan hoosaad iyo qoraal la socda iyo ciwaan hoosaad iyo qoraal la socda taa macnaheedu waxa weeye haddaa ciwaan hoosaadkan qoraalkan la socda aad samaysid inta kale waa isla exactly tii hore oo kale oo bas qoraalka la bedelay yani inta haddaad samaysid waxaad samayn kartaa copy paste tan oo kale qoraalkii ka bedel copy paste haddana tii hore oo kale qoraalkii ka bedel yani waa intaan la soo celiyay haddaba nooge maadaama aan niri intaan waa isku koox bogga aan saddex u kala qaybinay intaan waa isku koox waxaan gelinaynaa tag la yidhahdo main oo badanaa la geliyo bogga waxa ugu muhiimsan uu ka hadlayo waxa ugu muhiimsan ka hadlayaan bogga inta mainka inta waa ciwaankii loogadii iyo waxyaabahaas bogga qoraalka rasmiga ah bogga uu ka hadlayo waa inta ciwaanka guud iska daa halkan loogadii badan ugu qoran qoraalka rasmiga bogga ka hadlayo waa inta intaana waa footerkii qofka uu qoray sana magaciisa oo kale social media facebook iyo link waxyaabaha u yaala kala copyright-kii hadduu copyright leeyahay yani waa footerkii wax muhiim ma ahan intaa way qoraalka rasmiga haddaba qoraalka bogga inta samaynka waxaa loo isticmaalaa tag la yidhaahdo main asaga ay dhamaystireen marka mainka iyo asaga labadii opening tag iyo closing tag asaga qoray intaan soo socto dhan marka intaan oo dhan waxa dhexgelinaya intaan waxa dhexgelinaya mainka intaan waxay ka kooban tahay maxaa weeye ciwaan iyo qoraal waxa arkaysaa ciwaanka iyo qoraalku isleeyihiin ciwaanka wuxuu ku yiri HTML basics bacdina intaan ku hadlaysaa HTML basics bay ka hadlaysaa HTML waxay tahay iyo waxa loo isticmaalo haddana CSS basics iyo CSS waxay tahay inta yarta ka hadlaysaa tanna labadii loo isku daray haddaba waxa isticmaalnaa maadaama intaan isla socdaan wax sheegaya inay isla socdaan intaan waxa isla gelinaynaa tanna gaar u qori mayno marka dib ugu dambeyntii gaar baa u qori doonaa laakiin marka koowaad waxaan samaynaynaa sanduuq labadan isku haya waxaan dhahaynaa sanduuqaasna waxaan bixinaynaa section imu dhamaystirin sida ka muuqata sida darteed waan aan ugu qortaa I don't know why ugu dhamaystiri waaye ya hadduu dhamaystiri sida ka muuqata section waxaan ka dhigaynaa section okay sectionka maxaa ku jira sectionka waxaa ku jira HTML ciwaan ah HTML basics iyo qoraal ah ciwaanka waa taqaanaa sida loo sameeyo waxaa isticmaalaysaa h maanta h2 aan isticmaali maadaama ciwaan hoose uu yahay ciwaanka kuwaad kale uusan ahayn h2 aan dhahno baan maxaa dhahaynaa maanta caadi aan isku qorno HTML yeah basics HTML basics yeah totally waa qorso ma jid waxaa noo haray qoraalkii qoraalka caadiga waxaa loo isticmaalaa tag la yidhahdo b oo ka yimid asalkiisa paragraph qoraalkina halkaas ku qoraysaa okay qoraalka maadaama uu dheer yahay noo soo koobiya qoraalkina waa kaas waxaa dhigi kadhaa marka hadda sectionka koowaad waa qorano sectionka labaadna waa isla exactly intaan oo kale laakiin qoraalkii la bedelay sidaa darteed sooma dhigi karo iisoo koobiye isla asagii kale iisoo koobiye waana intaas samaynaa hadda copy paste sectionkii labaad waa soo qoray laakiin maadaama isku qoraal yahay qoraalkii ka bedel ciwaan kale waa soo koobiyeyso waxaa dhahdaa waxaad tagtaa meesha HTML basics ahayd waxaad tagtaa CSS basics buu noqonayaa CSS basics way isbedeshan jeed waxaa noo haray qoraalka weyn oo paragraphka yani p tag qoraalka dhex jira tan waxaan ka dhigaynaa qoraalkii isbedelay CSS buu ka hadlaya waxaa ku haray maxaa weeye cadka ugu dambeeya oo ah cadka saddexaad waxaa samayn kartaa isla intii oo kale isla section isticmaashid laakiin waa ka yara dugaynaa khasab ma aha qoraal kastoo saas kale iskula socda ama wax kastoo saas kale iskula socda inaad section isticmaashid haddii waxa isla socda ay xiriir ka dhexeeyaan waxaa fiican inaad section isticmaashid laakiin waajib kuma aha waxaa isticmaali kartaa dayta waxaan isticmaalay markii aan bilaabaynay div tag la yiraahdo oo aan ku wada xirnay alaabtina dhan div halkaas ka bilaabmada opening tag closing tagina waa halkaas ku xirmaa
haddaba maanta waxaan isticmaali karnaa div hoosaad hadda maanta section baa isticmaalnay sectionka waxaa ku dhex jira h iyo b meeshii halkan section ka isticmaalay waxaan dhigi karnaa maanta b div isticmaal first section ha isticmaali divku wuxuu noqon karaa boorso intaan isku xidho uu noqon karaa isku laftigiisu sidaa darteed waa isticmaali karnaa laakiin waxaan rabaa inaad divkan aragtid sidaa darteed divkan isticmaal isna why not okay div aan isticmaalay divka maxaa ku dhex jira waxaa dhex gelaynaa isla wixii ku dhex jiray sectionka section isticmaali mayno laakiin divka waxaan isticmaalnaa wixii ku dhex jiray sectionka yani h2d iyo kabacdina bd kaliya magacii aan bedelnay soo ma jeedin yaa soo qormatay bas ciwaanka hadda bedelaynaa meeshii baan tegaynaa ciwaankaa soo koobiyeysaynaa waxaa dhahaynaa okay combine html css kabacdina qoraalka soo koobiyeyso waxaa dhahdaa copy kabacdina paste qoraalkiina wuu isbedelay almost hadda taqriiban waa dhammayno wax yar baa noo haray waxaa noo haray inaan samayno keliya footerka inaan samayno please la soco halkan markaan sectionka isticmaalaynay labadan hore section baa isticmaala tan iyo tan ereyga section baa u isticmaala tana div baa u isticmaala hadhow markaan css ka samayn doono muuqaalka soo socda sidaan styleka u samayn doono way kala duwanaan doontaa sababtoo ah kana section buu isticmaalay kana div buu isticmaalay obviously stylekan isku mid waa ka dhigi karnaa laakiin waa kala dugaynaa ayada haddaba taas kala soco hadhow isku khaldi waxaa noo haray footerkii baa noo haray intii ugu dambeysa pageka noo haray footerka waxaan niri pageka saddex u kala baxaa baa u kala qaybin pagekan header hore iyo main iyo inta ugu dambeysa aan footer u bixin halkan kusoo qorin haddaba footerku mainka kuma jiro mainka banaankiisaan footer geyn doonaa yani mainka u tag closing tag tag gadaashiisa tag footerka waxaa dhex gelin kartaa mid div la yiraahdo sida halkan ba div u isticmaalay waana section u isticmaalay laakiin sidoo kale waxaa jira erey u khaasa footerka sida dadka why not adoo isticmaalay footer baa jira erey la yiraahdo closing tag samee yeah footer baa jira footerkeena haddaba maxaa ku dhex jira noo fiiri waxyaabo badan baa ku dhex jira kale logooyin waxaa ku dhex jira logo facebook logo twitter magac copyright maanta maxaa ku dhex jira intaa kaliya ku dhex jira yani oo qoraal caadi ah b tag sidaa darteed waxaan isticmaalnaa b tag baa intaa dhex gelinaa noo soo koobiye kabacdina footerka waxaa ku dhex samaysaa b tag ku dhex samee kabacdina intaa ku dhex qor wabillahi tawfiiq yani html oo dhan waa intaas meeshaani fi aan wax ku qoran jirnay hello waxba kuma qoran doonta يعني كونسول كان حكو قرن jirnay waa kan meel lagu falaado ahaa meel rasmi ma ahayn sida dadka xubin maanta kuma qorno meesha rasmiga wax lagu soo qoro markasta page kasta wax ka akhrinaysa markasta maqaal akhrinaysa meesha akhrinaysa meesha waa html meesha lagu soo qoro qoraalka qoran hadaba kaas html waxa akhrisanaysan inta u qorf badnayn fiilada kala jiido xasaa u kala jiidan bay noqonaysaa qaab darra soo halkan iska sii yareeyo xasaa qaab darra bay noqonaysaa laakiin muuqaalka soo socda ay weynayna gaarsiiyo waxaa ka dhigi doonaa saan oo kale yani waxaa styleka ah aadka quruxda badan haddii xataa kala jiidid ana ilaa dhammaad kula gaaray markuu meel dhex maraya kaaga haray fiiri marka koowaad wuu kula socdaa pageka intaas u jira qarka intaas u jira markaa laakiin weyneeyey markuu meel dhex marayo ku dareemaya anaa aad u weynaaday ups uu iga haraya u dhahaya intaa badan kuma socon karo hadda in weyn bas ku jirto soo jeedin waxaan ku samaynaa waxaa weeye css haddaba la soco muuqaalka soo socda si aan intaas isla intaa hadda aad qortay si aan ugu bedelno page qurux badan si aan ugu bedelno intaa falaadka hadda u eg si aan page qurux badan ugu bedelno haddaba muuqaalkeeni html basics ciwaan buu noo yahay qoraaladan waxaa qortay total aan uma qorin waxaa qoray chatgpt kulligood chatgpt waa qoray haddaba muuqaalkeeni html basics intaan ugu joogo intaan muuqaalkan ku xooga ku kulmayno salaamu calaykum